walaalayaal waa idin salaamay dhamaantiinba waxaan idinku salaamay magaca sayidkeena iyo badbaadiyaheena Ciise Masiix soo dhawaada dhamaantiinba waxaan idinku soo dhaweynayaa Somali Christian Life walaalayaal waxaan Ilaahay noogu baryayaa in indhaha qalbigeena la nuuriyo si aan u ogaano waxa ay tahay rajada yeeristiisa aamin soo dhawaada walaalayaal waa anigi oo anaga Ashiina Gaabo oo idin wado arin kale iyo barnaamij kale oo aad u xiiso badan oo xamaasadna leh waayo markaan ka hadlaynaa kitaabka quduuska iyo ereyga Ilaah waa arin xamaasad leh oo xiiso leh oo na farxad gelinaysa mowduuca noo wada maanta waxay tahay samafalka waa mowduuc aad u wanaagsan waa maqasheen in dad badan yiraahdaan inta badan hay'adana waa hay'ad samafal maxay samaysaa hay'adda samafalka adiga samafalka ma ka shaqaysaa waa maxay samafalid waxay tahay wanaag samayn qofka wanaag sameynaya ayaa waxa la yiraahdaa samafale marka samafale waa Ilaah bay ka timaadaa inuu samaha dhan Ilaah iska leh wanaag dhan Ilaah iska leh Ilaah xaqiisa ay ka imaataa kuwa Ilaah yaqaana oo qalbiyada uu ku abuuray wanaagiisa ayaa wanaaga sameeya hay'adahan u fiirsan marka ay yimaada Soomaaliya oo kale taga ama wadamo kale taga la yiraahdo hay'adaha samafalka waxay ka shaqeeyaan inay caawiyaan dadka dhibaataysan inay caawiyaan ay u sameeyaan maxay u caawinayaan inay helaan nolosha Ilaah ugu talagalay inay dib ugu soo laabato haday xanuunsan yihiin way daaweynayaan haday waxbarasho siinayaan haday gaajaysan yihiin cunto siinayaan waxaas oo dhan waa samafalid hadaba ogaada marka samafalku ma aha wax adiga markaa samayso oo adiga wax kale aad dib u helaysid laakiin samafalka dhabta ah ee qalbiga ka yimaada oo Ilaah uu abuuray oo Ilaahna ka socda xaqiisa waa samafal aan u baahneen in abaal gud la siiyo qofkii abaal gud uma sugaysid waxa sugaysaa waxay tahay kaliya shaqadii lagu talagalay inaad qabato adiga ayaa qabanaysaa hadaba waxa ogaataa marka kuwa masiixiinta ah Ilaah uu badbaadiyay waxa leeyahay idinka ana idin badbaadiyay hawsha aad qabanaysaana waa hawshii wanaagsan aniga idinka daraadeed u abuurayba waa Ilaah wuxuu yiri aniga waxa idinka idin sameeyay shuquladeeda wanaagsan inaad sameeysan aawadeed waayo anaga waxaan nahay ambassadors ama ergayaashi rabbiga waxay sameeyaan waxa boqortooyada rabto inay sameeyso ayay sameeyaan maxay tartaa boqortooyada inaan samaha sameeyno marka samafalku waa sidaas waxaanu sameeynaa oo ka shaqeynaa waa samafalka dadka barka badana waxay isweydiiyaan maxaa shuqul wanaagsan oo aan sameeynaa bini'aadamka mar walba isweydiiyaan hadaba marka meeshaan imaado maxaan qabtaa shuqul wanaagsan hatta u fiirso xafiisyada marka la joogo dadku waxay weydiiyaan inay sameeyaan shuqulka ay qabanayaan shuqulka ugu wanaagsan ay qabtaan marka Rabbi Ciise Masiix oo dhulka jooga oo bini'aadan jirkiisa ku imaaday ayaa dadkii la socday waxay yiraahdeen maxaanu sameeynaa shuqulo oo wanaagsan markaas Rabbigu wuxuu ku leeyahay sidan Yohana cutubkiisa 6 aayada 8 waxay leedahay sida aawadeed waxay ku yiraahdeen maxaynu yeelnaa si aynu shuqulo fiican shuqulada Ilaah u sameeyno waa shuqulada Ilaah ayaa wanaagsan Ciise ayaa u jawaabay ku yiri kan waa shuqulkii Ilaah inaad rumaysaan kii soo diray bal fiirsada kii soo diray intuu ka yimid asaga Ilaah xaqiisa ayuu ka imaaday marka dambana ogaan doontaan Ilaah xaqiisa ayuu noqon doonaa marka garta dadka sidaas ay wiligoodba u weydiinayeen shuqulada wanaagsan maxaa la sameeyaa waayo shuqul walba wanaagsan waa Ilaah baa lagu raali garayaa Ilaah ayaa ku farxa oo ku raali gareysma shuqulada wanaagsan anaga aan sameeynayna marka dadkii markaas joogay waxay weydiiyeen Rabbi Ciise Masiix shuquladeen sameeynaa si aan Ilaah u raali garayno markaas wuxuu ku yiri rumaysta kan asaga uu soo diray asagoo ayaga la hadlay oo dhahayo aniga rumaysta aniga ayaa rumaysateen ayaa waxay tahay shuqulka ugu wanaagsan oo qabateenba waxa ugu horeey oo wanaagsan qofka uu qabanaa waxay tahay ereyga Ilaah inuu garto waa ereyga Ilaah ayaa kugu hogaaminaya shuqul kasta oo wanaagsan ereyga Ilaah ayaa ku baraya shuqul kasta oo wanaagsan hadaba ereyga Ilaah oo jirhooda ayaa idin horjoogay ereyga waa aniga garta ayuu leeyahay Rabbi Ciise Masiix marka arin ajiib leh waa sidaa u fiirsid qof ku horjooga oo ku yimid oo ku dhahayo waxa shuqulka ugu wanaagsan ay qabanaysid waa inaad rumaystaa kii aniga soo diray marka hadii askii la soo diray inuu la rumaysto kii la soo diray waa isaga kii Ilaah uu soo diray inaad rumaysto ayuu leeyahay kaas in la rumaystaa waa waxa ugu wanaagsan qofka uu qabanayo wanaagana wuxuu ka bilaabay meeshaas wax walba asaas ay leeyihiin wanaagan la sameeyay asaaskiisu wuxuu noqday marka oo Rabbi Ciise Masiix u sheegayaa kan aniga kii Ilaah uu soo diray oo aniga rumaysta si ay u noqotaan kuwa shuqulada wanaagsan sameeyay marka asaaskii waa kaasa meeshaas ayuu asaas ka dhigaya kii walba oo rumaysta Ciise Masiix macnaheedu waxay tahay wuxuu diyaar u yahay inuu qabto shuqulada wanaagsan waayo Rabbi asaga wuxuu leeyahay idinku ana erga ii noqonaysaan sida aniga aabaha uu ii soo diray ayaa aniga idinka idin diraya inaa qabtaan shuqulada wanaagsan marka hadeen waa soo sheegay waxaan Ilaah wuxuu noo abuuray inaan shuquladiisa wanaagsan aan sameeyno anaga si asaga amaantiisa u muuqato waayo kitaabka waxa ku qoran marka dadku ay arkaan shuquladiina wanaagsan
ayay amaani doonaan aabihiina jannada marka shuqlada wanaagsan waxa waaye shuqlada إلى حق إسكا إمادة وحين كنت مع دا وهرين تبا رميسة الرميسة عيسى مسيح مركو حالينا أساسك شغلك وناكسن والرميسة كأري إله والرميسة كعيسى مسيح مركاسا وحنا قنيسا قفكي دقاقي كود داي عيسى مسيح وعيسى مسيح مركو دوني دي جوجي وحو قبنا أي سمفلك أقوى ناكسن أساسي بي بلو فيرسو سمفلك أقوى ناكسن أسمي محياد كوي إن دهلا من أفري كوي عريامين تها لغو أسمي كوي قاجسنا عنتو سيي كوي maxaa la yiraahdaa spirit ku ku jiray ama maartay ruuxadaha xun ku jir wuu ka bixiyay waxaan dhan waxa la yiraahdaa waa samafal dad dhibaataysan ayuu dhibaatada ka qaaday marka asaga saa ugu dayatid waa in ereyga adiga aad rumaysta waa in asaga rumaysta waa ereyga asaga ereygaas marka rumaysta ay waxa asaaski markaas ka duuli kartaa meeshaas saa u samaysid shuqulka wanaagsan oo Ilaahay noogu talagalay inaan sameeyno marka walaalayaal waa qaybtaas qaybta ugu horeysa oo ah asaaska wanaaga waxay ka timaadaa in la rumaysto ereyga Ilaah hadaba ereyga Ilaah fiire ereyga Ilaah marka rumaysato ereyga Ilaah ayaa wuxuu ku barayaa inaad samaysid wanaaga waxaan u aqrinayaa marka Timotheoska 2 aayadda cutubka 3 aayadda 16 iyo 17 oo ah qoraalka Ilaah kitaabka quduuska ee noo qoran oo ereyga Ilaah ah ereygaas Ilaah wuxuu barayaa inaan shaqo wanaagsan wada sameeyno waayo kii ku dhismo ereyga Ilaah wuxuu noqonayaa qof shaqo wanaagsan sameeya marka waan u aqrinayaa si ay u garataan aayadaha sida ay leeyihiin Timotheoska 2 cutubka 3 aayadda 16 waxay leedahay qorriin kasta wuxuu ku ahaaday ruuxa Ilaah oo waxtar buu u leeyahay waxbaridda iyo canaanashada iyo hagaajinta iyo edbinta iyo xaqnimada aayadda 17 waxay leedahay in ninka Ilaah uu ahaado mid dhan oo loogu diyaariyay shaqo kasta oo wanaagsan ereyga hadaa waxa la asaas waxa uu ah munaaga asaas waxa uu ah ereyga Ilaah asaas waxa uu ah rumaysadka ereyga Ilaah asaas waxa uu ah Ciise Masiix asaaska marka hesho waxa uu leeyahay asaaska waa haysta asaaska baro waa kitaabka quduuska waayo kitaabkan qorin kasta wuxuu ku ahaaday ruuxa Ilaah waxtar buu leeyahay adigu wax ka tar ku leeyahay waxtarka muxuu noqdana waxa uu leeyahay qofka Ilaah inuu ku dhameystirnaado shaqo kasta oo wanaagsan marka shaqo kasta oo wanaagsan waxa ka baranaysaa oo ku baranaysaa ina Ilaah raacdo ina Ilaah erigiisa qaadato erig Ilaah aan rumaysato waayo Ilaah ayaana barayo waayo kitaabkan waxa ku taalo oo in badan rabbigu uu leeyahay kii kasto aniga rumaysta waxa waa kii shaqo wanaagsan sameeyay marka waqtiga dambe la yimaado waxa loo kala soocayaa baa liir dadka dhinaca midigta dhinaca bidixda baa loo kala bixinayaa sida kitaabku taala kuwa dhinaca midigta ku jooga baa waxa la leeyahay waa wanaagsantiin wax wanaagsan baa sameeysan waayo markaan idin imid waa isoo dhaweyseen markaan gaajasna cunta isiiseen markaan isbitaal ku jiray waa isoo booqateen markaan xabsi ku jiray waa ii timaadeen markaas dadku waxay leeyihiin goorma adeeg ku aragnay markaas wuxuu leeyahay intii aa u qabateen kuwaygan ama dadka bini'aadamka u qabateen waxay la mid tahay idinku aniga qabto oo kale marka wax walba la qabanayo oo wanaagsan waxa loo qabanayaa Ilaah daraadiis hadaa waxa la asaas waxa uu ah rumayska ereyga Ilaah rumayska ereyga Ilaah wuxuu ku barayaa inaad wanaag sameeysid wanaagan adiga aad sameynaysid Ilaah daraadi ayaa u sameynaysaa marka waxa uu sameynaysaa waxay tahay in Ilaah uu ku raali gareysmo bini'aadamnimadaada inuu ku raali gareysmo marka shaqada aan wanaagsan anaga aan qabanayno ma aha shaqo ajir aan ka sugayno ma aha waa shaqo wanaagsan oo Ilaah anaga noogu talagalay inaan sameeyno waxay ka mid noqonaysaa dabeecadaheena ay ka mid noqonaysaa shaqada wanaagsan ee anaga aan sameynayno si Ilaah uu amaanmo waayo anaga ajir ma raadsano ajirka waxa waaye waa wax dhibic aad sameeysanaysid laakiin ajirka ugu dambeeyo iyo waxyaabaha ugu dambeeyo nala siiyay waxay tahay jannada aniga diyaar baan oo tahay marka ajirka ma helayno waxaan helaynaa shaqulkii wanaagsan ee dabeecadii wanaagsan Ilaah noogu talagalay ayaan sameeynaa si Ilaah uu amaanmo shaqo wanaagsan aan qabanayno marka waxa dhab ah marka Efesos cutubkiisa 2 aayad 10 waxay leedahay waayo inagu waxaynu nahay kuwa isaga uu sameeyay oo waxaa naloo sameeyay Ciise Masiix shaqada wanaagsan aawadood annaga waxaan diyaar Ilaah uu noogu dhigay markuu na doortayba wuxuu yiri shaqada wanaagsan aawadood ay doortay marka shaqada wanaagsan waa qofka masiixiga ah waxay ka mid noqonaysaa qaabkiisa ka mid noqonaysaa inuu sameeyo isagoona filaynin ama rajaynaynin qofkaas inuu abaal u gudo waayo shaqo wanaagsan adiga qabata Ilaah baa abaal marnaa shaqo wanaagsan oo adiga qabata Ilaah wuxuu ku abaal marnaa waxay tahay isaga ku amaan maaye adiga waxa noqonaysaa kii wanaagsanaade oo Ilaah uu ku faraxsan yahay marka anaga Ilaah wuxuu noo abuurayba in anagan aan qabano shaqada wanaagsan inaan qabano marka walaalayaal shaqada wanaagsan waxay ku yimaadaan rumaysadka Ciise Masiix la rumaysto ereyga Ilaah kadibna waxa noqonaysaa kii ereygii bartay ereygiina ku dhaqaaqa oo shaqo walba wanaagsan ka qayb qaata marka waxa jirta sida aan shaqo wanaagsan daraada nolol sameeyay waxa dhacda marka dad badan oo masiixiin ah inay ayagoo wadamadooda degan ayagoo shaqooyin wanaagsan haysta ayagoo nolol wanaagsan ku jira in Ilaah uu leeyahay shaqada wanaagsan bax samee
markaasa waxa la leeyahay waxa aadaysa meesha ugu dambaysa Africa ama meesha ugu dambaysa Asia oo maartay oo baawur u tageenin oo maartay nolosha ay ciriir tahay baa waxa la leeyahay meeshaas tag markaasa waxa arkaysa qofkiyo ilaah erigiisa maqlaayo waayo erig ilaah wuxuu u joogaa inuu anaga hagaajiyo oo naqaabeeyo kadibna noloo diro si aan u qaban shaqooyin wanaagsan markaas waxay aadayaan wadamada noocaas oo kale taa markaas waxay qabanayaan shaqooyin wanaagsan ilaah uu talagalay waxa arkaysa qaar oo takhaatiir ah oo wadamadan ka tagaayo oo wadamadaas kale aadayo oo faqiirinta ah si ay u daawayaan dadka xanuunsan oo awood u heli karin inay daawo iibsadaan waxa arkaysa dad cunto halkan ka qaadayo oo meelahaas kale geenayo si ay cunto u siiyaan dad aan cunto helinin intaan oo dhan waa samafal waxaan maxay u sameynaa marka ilaah ayaa qalbigooda ku abuuray wanaaga waayo wuxuu yiri marka aniga idin doortay waxaan idin abuuray shaqaaladeeda wanaagsan aawadeed qofka waxa loo baahan yahay marka erey ilaah inuu maqlo waxa loo baahan yahay hadalka ilaah inuu maqlo oo wanaagsan waayo ilaah waa ilaah wanaagsan wuxuuna barayaa anaga inaan isku wanaagsanaano ilaah asoo waa noo wanaagsanaaday anaga inaan isku wanaagsanaano oo samafalka aan sameeyno hada dunidan waxa arkaysa dad badan gaajaysan dad badan xanuunsan laakiin intaasba waxa keenay shaydaanka ayaa keenay oo dadka jeclaysiiyay in ay kaligood wax haystaan laakiin ilaah wuxuu leeyahay wanaag adiga ilaah uu ku siiyay si qaybi waa ilaah haduu ku barakeeyo adiga wuxuu rabaa dadka inaad barakeysid barakada ilaah ku barakeeyay caafimaadka wuxuu rabaa adiga hadaa caafimaad qabtid kuwa caafimaad qabeen inaad gacan qabatid wax siisid hadii dhaqaale ilaah uu ku siiyay wuxuu rabaa dhaqaale ilaah uu ku siiyay in kuwa waxba haysan inaad wax ka siisid hadii ilaah uu ku barakeeyay wuxuu rabaa barakadii inaad ayaga la qaybsatid ay wax ka qaadatid marka ilaah shaqo wanaagsan maadaama uu noo abuuray shaqo wanaagsan maadaama uu noo abuuray walaalayaal waxa la rabaa shaqo wanaagsan inay naga muuqdaan ina anagana baxno sida dadkan aan soo sheegay oo kale taa ay dhaqaaqan waxa kitaab ku jirto sheeko wanaagsan oo la yiraahdo Samaritankii wanaagsana Samaritankan wanaagsan ayadaha wana akhrin doonaa wuxuu ku yimid wuxuu ahaa nin ayaa wuxuu ka soo baxay tuulo ka soo baxay oo u sii socday Jericho meel la yiraahdo ka soo baxay wuxuu u sii socday Jerusalem dhaxda waxa ku qabsay tuugo way dhaawaceen way dileen ilaa intuu mid dilinay oo dhaawac badan ay u geysteen ee aad u xanuujiyaan markaas waxa soo dhinac maray mid wadaad ah dhinac kale ka maray ninkii oo dhaawacan oo xanuunsan oo dhulka yaalo dhiig baxay ku kala yimid oo laavi la yiraahdo waa ku culimada diinta dhinac kale ka maray asagan wax uu muusan qabanin markaas waxa imaadeen nin Samaritan ah kuwani waxay ahaayeen Yuud ay ahaayeen labadii hore laakiin kan wuxuu ahaa family kale Samaritan kale yiraahdo intuu u yimid ayuu daaweeyay ayuu dhabeebay ayuu macnaha la hadlay wuxuu intuu qaaday ayuu wuxuu saaray dameerkiisii uu qaaday oo hotel geeyay markaas hotelkii seexiyay marka waxaan wanaagsan uu qabanay muxuu ugu qabanay marka wuxuu ugu qabanay waa qof ilaah qalbigiisa u geliyay inuu wanaag sameeyo maaha wanaaga maaha wixii lagu baray oo qofku markuu awoodiisa ku sameeynaa wanaaga wuu ka leexanaya wanaaga dhabta aha bal fiir kuwii diinta yaqaanay kuwii oo culimada diinta aha iyo kii laafiga aha oo yaqaanay ilaah yaqaanay waa dhinac mareen laakiin kii ilaah qalbigiisa u geliyay wanaag ayuu sameeyay marka aniga waxaan leeyahay idinkana baxa sida ninkaas oo Samaritanka uu sameeyay oo kale idinkana sameeya marka waa shaqo wanaagsan oo ilaah uu qalbigaaga gelinayo marka adiga aad rumaysto isaga marka walaal rumayso erig ilaahna asaga ku baraayo ee ku qaabaynayo si aad u dhameystirnaato si aad u noqotid ku shaqo walba wanaagsan sameeya si aad u noqotid samafale waayo waxa tahay kii rumaystay samafalaha dhabta ah markaas samafal noqonaysaa markaas sameeynaysa aad u sameeynaysaa si wanaagsan oo adigoon dan kala hayn oo rajana kala hayn in qofkaas uu abaalgud uu ku sameeyo waayo kitaabka ay waxay ku taala waxyaabaha xaq ah idinka aad qabanaysaan iyo noqon status waayo hadaa istutuso shuquladaadii meesha ku baaba'eenba waa sida marka uu leeyahay hadaa sadaq bixinaysid gacantaada kale ay arkan inaad sadaq bixinaysid ha noqon sida kuwa buunka qaata jidka istaaga iyo yeeriya buunka oo yiraahdo sadaqan bixinay marka wax wanaagsan ma aha marka waxa laga yaabaa inaad isweydiinaysid dad baa jira oo ilaah aaminsaneen hadana samaha fala waa run kuwa saas sameeya wax weeyaan si kale ay wax u raadsadaan sharaf ama magac ama qiimo kale u raadsadaan waxa arkaysaa nin wuxuu leeyahay aniga waxaan bixiyay 100,000 oo dollar baan bixiyay jeeb weyn inta soo dhaway dadku susaaya statuskii baaba qaatayba already faa'iidiisi wuu qaatay ajirkiisi ama aan dhihi lahaa wanaagiisi wuu qaatay laakiin qofka daacadda ah oo ilaah uu ku abuuray wanaaga markuu sameeyo isma tutusaayo mana faanayo wuu bixiyay wixii asaga waxa waaye wuxuu wax ka sugaya wanaaga rabbiga ay wax ka sugaya marka qof waa jira oo ilaah aaminsaneen oo wanaag sameeynayo laakiin wanaagiisa already wuu iibsaday wuxuu ku iibsaday inuu magac ku helo wuxuu ku iibsaday inuu sharaf ku helo wuxuu ku iibsaday inuu dadka istutuso taas meesha uga dhamaata asaga laakiin kan ilaah ee erig ilaah qaatay ee wanaaga sameeyay wax waay abaalmarintiisa ilaah ayaa bixiya ma aha nin wax istutusaayo ma aha nin magac rabo ma aha laakiin wuu og yahay samahan uu sameeyay inuu yahay samo wanaagsan oo ilaahna uu abaalmariyo waxaanu ognahay sida ninkan Samaritanka wanaagsan ah qof walba waxa la rabaa inuu Samaritan wanaagsan noqdo hadii Samaritan wanaagsan adiga aan noqotay qof kale tan wuu sii baxaya way wuxuu ku dayanaa shaqalka wanaagsan adiga aad sameysay asna shaqalkii wanaagsan ay u sameynaya si dadku ay u sameeyaan waxyaabaha wanaagsan ilaah u jecel yahay marka walaalayaal samafal
samafalida xaq ilaahay ay ka timaada waxa naloo siiyay hadiid ahaan aanu lagu siiyay hadiid ahaan ayaan u bixinayna anagana inagoona ka rajeynayno qof kaleeto inuu noo abaal mariyo wax noo qabto ilaah ayaa abaal mariya samaha wanaagsan marka inagoo taa og ayaa waxaan rabaa in haddana inaan noo akhriyo Ephesians ama Ephesos cutubkiisa 6 aayad 7 waxay leedahay niyo wanaagsan ku adeega sida idinkoo rabbiga u adeegayo oo aan dad u adeegin bal fiirso marka dad u adeegay samafal baa qabanaysa samaha adiga aad sameynaysid waxa ka dhigaysa adigoo u sameynaa ilaah aawadi u sameynayo niyo wanaagsan baa ku sameynaysa adigoo u adeegayo sida idinkoo rabbiga u adeegayo oo kale shuqul buu wanaagsan adiga qabanaysid waxa ku qabanaysa niyo wanaagsan baa ku qabanaysa oo farxad leh markaas waxa arkaysa shuquladii aad lagu diray oo ama qabanaysa in si wanaagsanaadaan idinkoo garanaya wax kasta oo wanaagsan oo mid kasta sameeya inuu rabbiga isla waxaas uu ka helaayo hadduu yahay adoon iyo hadduu yahayba xor nooca dunta adiga ahaa macala xaalada qofka dunta ahaa hadaa wanaag sameeysid wanaagaas oo kale ayaa ilaahna uu ku sameeynaya waa sida leeyahay badana waxa la yiraahdaa kuwa dhulka joogo idinka isku naxariista wanaag isku sameeya wanaag kurba idinkaga imaanaya ilaah baa idinkan wanaag idin siinaya marka ilaahina waa ilaah saas wanaagsan ilaah wanaagsan wuxuu rabaa in asaga ku dayano ninba marka wuxuu yiraahdaa hadda koor macallin wanaagsanow maxaan sameeyaa si aan macnaha boqortooyada ilaah u helo markaas wuxuu yiri kan wanaagsan soo raac kan wanaagsan waa kee kan wanaagsan waa isaga waa Ciise Masiix markuu la hadlayo isaga wanaagsan qofka markuu raaco ayaa asna wanaaga u barnaa inuu raaco waayo kan qofka wanaagsan aad markaa raacaysid isaga ayaa ku dayanaysa wanaaga uu sameeynaya kaga dayanaysa isaga marka ilaah waa ilaah wanaagsan oo na dhahay aniga soo raac ninkii isaga sida u weydiiyay Muuse raacin Ciise Masiix waayo wuxuu jeclaysay lacag ayuu lahaa lacagtiisa ayuu jeclaysay waayo waxa la yiri lacagtan bixi oo waxa siisaa masaakiinta kadibna aniga soo raac waayo kan uu soo raacay waa kan wanaagsan si uu jannada u aado wuu diiday haddii uu diiday wuxuu noqday kii ka haray jannada ka haray shuquladan wanaagsan waxay noo geynayaan noo kaxaynayaan waxay tahay waa tabtii iyo maartay dabagalkii Rabbi Ciise Masiix waxay nageynaa meesha asaga uu joogay marka walaalayaal waxa ogaataan samafalida inay tahay wax aad wanaagsan samafalida aaskeeda waxa ah marka in la rumaysto Ciise Masiix oo ah ereyga ilaah marka ereyga ilaah aad rumaysato ereyga ilaah wuxuu ku dhameystirayaa oo ku barayaa inaad noqotid ku shuqul wanaagsan ka qayb qaata marka shuqul wanaagsan ka qayb qaadatid waxa noqonaysaa shuqulada wanaagsan in rabbiga uu abaal marnayo shuqulada wanaagsan markuu abaal marnayo waxa helaysaa inaad ku sameeysid wax walba niyad inaad ku sameeysid niyad wanaagsan inaad ku sameeysid adigoo sida rabbiga uu adeegayo oo kale ayaa waxa u sameynaysaa shuqulkii wanaagsan ilaah uu ku talagalay inaad sameeyso marka waa asaaskaas waxaan leeyahay astaantaas wanaagsan ayaa ilaah uu noo diyaariyay in aan haysano ereyga rabbiga aan ku xoogaysano ereyga rabbigana uu nabaro inaan samaha sameeyno samafalkana ay tahay wax wanaagsan haddana kitaabku wuxuu yiri samahan adiga aad sameynaysaan rabbiga abaal marnaa waxa bixiseen intoodii in ka badan ayaa helaysaan marka barakada ilaah uu ku sii bixisid baraka kale ka sii badan ayaa helaysaa marka rabbiga wuxuu rabaa inuu koobkeena mar walba buux dhaafo koobkaaga wuxuu ku buux dhaafaa waxay tahay wixii lagu buuxiyay dadku si qayb adigana marka walaalayaal hadaan masiixiyiin waxaan ku ka shaqeeyaa samaha kuwa samaha sameeyo waxa naloo abuuray ayaa waxay tahayba shuqulada wanaagsan aawadeed ilaa wax kale oo noo abuur malaha inaan sameeyno shuqulada wanaagsan wuxuu rabaa shuqulada wanaagsan dunida inay ku faafaan dunida say ugu faafaysaa marka kuwa isaga rumaystay ereyga rumaystay inay ka dhabeeyaan ereygana inuu erey wanaagsan ah ereygaas wanaagsan ayaa dunida ku faafaya si uu shuquladiisa wanaagsan asna u qabto marka aan ahaana dhamaantaanba kuwa ka shaqeeya ereyga wanaagsan kuwa samafalka bixiya kuwa samaha ka wada shaqeeya yaa noqon group kaliya yaa noqon hay'ad kaliya laakiin dhamaantaanba shakhsi ahaanba ahaana kuwa nabad ka wada shaqeeya waayo qof walbaba meel buu ku wanaagsan yahay meesha ku wanaagsan tahay wanaageeda qabo marka rabbiga waa rabbi saas u wanaagsan isaga la raaca ayaa wanaagana qofka ku yimaada marka ilaahayna wuxuu rabaa inaan saas u wanaagsanaan walaalayaal wanaagaas aan ku faafino ummadeena Soomaaliya wuxuu u baahan tahay samafalayaal aad u badan marka shakhsi walba hadduu uu noqdo samafale waxaan aaminsanahay in nolol wanaagsan oo farxad leh ilaah uu noogu talagalay inaan heleyno marka aan ahaano kuwa qalbiyadooda ay ku jiraan ereyga ilaahna uu nabaro inaan samaha sameeyno samahaas markaan sameeyno aan noqonayno kuwii nolosha wanaagsan ilaah uu talagalay noolaada marka walaalayaal waxaan dhan waxay ku yimaadaan rumaysadka Ciise Masiix ereyga ilaah markaa rumaysato ayaa waxa noqonaysaa qofkii samaha sameeya marka masiixa afka laga qartaa qalbiga laga rumaystaa inuu asaga yahay ilaah iyo badbaadiye markaas waxa noqonaysaa kii asaga daba socday ee asana wanaaga sameynay marka walaalayaal waqtiga iska luminayna waqtiga inuu dib idin kaga dhicin hadda waqtiga haduu ku joogo rumayso Ciise Masiix afka ka qaro qalbiga ka aamin inuu asaga yahay ilaah waa badbaadaysaa marka samafalid waa arin wanaagsan intaasaan kusoo gabagabeynaya cashirkayga maanta waa mahadsantiin saa wanaagsan ay dhageysateen waxaan noogu duceynayaa marka ilaahayna jannada ilaahayna aabaheena jannada ee wanaagsan ee nabadiisa wax garashada ka sareysa qalbiyadeena iimaanka inay ku dhoorto Ciise Masiix ilaahu waxaan ka baryaynaa inaan ahaano kuwa samaha sameeyo samafalidan aan sameeyno ereyga qalbiyadeena geli intaasuna waxaan ku baryayaa magaca sayidka Ciise Masiix nabadgelyo idinka tagay walaalayaal arin is aragti kale oo xiiso leh